الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إلهي أيام هذا سبحانه وتعالى إنا وافجيي إنا يسوق النبي بركيسان بش رمضان وما تاينو مرينا مع الانتي سديد يتبناد سدانا أينو كدونا هينينو قبينو طبعا كي دحا وحينو هرينا يهين عدي إلهي سبحانه وتعالى وقرأ طبعا كدام بينيتها bisha ramadaan iyo fadligeeda waynu wada dareensanahay in badanna waa laga warramay. waxaan insha allahu tacaala aynu xalaqadan ama fadhigan aynu u gaar yeelaynaa inaynu ka waranno tobanka dambe iyo fadliga dheeraadkee tobankaasi uu leeyahay. tobankaasi wuxuu fadli ku yeeshay waxaa ku dhex jira habeen la yidhaahdo laylatul qadri. habeenkaas oo alle subxaanahu wa tacaala oo tilmaamay in quraanka kariimka alla soo dejiyay. alla wuxuu yiri inna anzalnaahu quraanka annaga soo dejinay fi laylatil qadri, habeenkii sharafta iyo saraynta, habeenkii lahaa sifadaas ee sareeyay ee sharafta lahaa dhexdiisa ayaa la soo dejiyay. marka dejinta noocaasa sida ahlul cilmigu ay u badan yihiin waa habeenka laylatul qadri ee bisha ramadaan ku jira. dejinta la soo dejiyayna waxa weeye waa markii laga soo raray quraanka lawxul mahfuudka ee samaa dunya baytul izz lagu soo dejiyay. kadibna nabiga kaleey salaatu wasalaam iyadana lagu soo dejiyay bil ramadaan. waxa weeye quraankii ugu horeeyay ku soo degay iqra bismi rabbikal suuradaas ay ku soo degtay. habeenkaasina sida aayad kale baa loo ku tilmaamay waa habeen barakaysan oo alla wuxuu yiri inna anzalnaahu fi laylatin mubaarakah. inna anzalnaahu quraanka annaga soo dejinay fi laylatin habeen gudihi la habeenkaas mubaarakatin la barakay. marka habeenkaasi waa habeenka laylatul qadriga la yiraahdo sharaftaas aanu leeyahay. laylatul qadri waxa loogu magacaabay laba macno waa suuragal. qadri oo looga jeedo rifca looga jeedo iyo sharaf oo macnaheedu noqonayo habeen rifca iyo sarayn iyo sharaf leh inuu habeenkaasi yahay. sida aayada kale tilmaamtayna waa habeen mubaaraka oo barakadu waa laba dhinac, khayrka iyo raxmadda iyo wanaaga soo degaya habeenka farabadnaashahu farabadan yahay iyo ducada aqbalkeeda iyo camalka saalixa aqbalka la aqbalaya farabadnaan uu farabadan yahay. sidaas ayaa loogu magacaabay inuu yahay habeen barakaysan. macnaha kale laylatul qadriga culimadu ay ku sheegeen waa habeenka la qadaro ama la xukmiyo sanadka waxa dhacaya. sida saxaabada qaarkood iyo taabiciinta ka soo arooray inay tahay habeenkaasi habeenka la xukmiyo qadaaga iyo waxa weeye sanadka soo socda wixii dhici lahaa, habeenka la qadaro iyadoo qadaritaan hore uu jiray oo alle subxaanahu wa tacaala hore u sii qadaray, laakiin malaa'igta hawsha u qaabilsan ayaa la ogeysiiyaa waxa weeye maxay tahay qaabka wax u dhacayaan sanadkaas. labada macnaba waa la yiri oo macnaha hore inuu habeen barakaysan inuu habeen sharaf iyo rifca u saaxiiba inuu yahay aayada kale laga qaato inuu yahay fi laylatin mubaaraka. isla aayada suuratu الدخان lafteeda ayay qolada kale oranaysa waa habeenka la qadaro arrimaha ay ka qaateen oo aayada ku xigta waxay oranaysaa fiiha yufraqu kullu amrin hakim. habeenkaas barakaysan ayaa la kala xukumaa oo la kala saaraa arrin kasta oo waxa weeye la jaangooyay oo loo jaangooyay adigu labada macnaba istiidimayaan. fadliga habeenkani uu leeyahay laylatul qadriga waxa kamida in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay in habeenkaasi uu la mid yahay kumbilood. alla wuxuu inna anzalnaahu fi laylatil qadr wama adraaka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. habeenka laylatul qadrigu wuxuu ka khayr badan yahay kumbilood buu ka khayr badan yahay. waa dhowr 80 sanadood. يعني عملك هبينك ليلة القدر لو وافجيات سميسو iyo taacada iyo wanaaga aad samayso noocay doonta ba ha noqotee waxay u dhigantaa
in aad waxa weeye 3 sannadood camalka inaad samaynaysi runtii waa fadli aad iyo aad u weyn fadligeeda waxaa ka mid ah nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam inuu yiri xadiiska Abi Hurayra fi sahihayn nabigu yiri man qaama laylatul qadri iimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi qofka habeenka laylatul qadriga istaaga ee cibaadaysta ee salaad tukada waxa loo dambi dhaafaa wixii tagay ee dunuubtiisa ah laakiin waxa lagu xidhay laba sharti iimaanan wa ihtisaaban yani inuu mu'min yahay isla markaana uu ku ajar dalbayo oo ilaahay u ajar kaga doonayo aanu istusnimo iyo riyaa iyo wax kale aan uga jeedin labadaas sifo haddii laga helo habeenkaana uu istaago dambigiisii hore ayaa loo dhaafaya dambiga la dhaafayaana waa kii weynaa iyo kii yaraa labadaba dambi oo dhan waa loo dhaafaya marka runtii waa fadli aad iyo aad weyn habeenkaas laylatul qadriga sida nabiga ka soo aroortay sallallahu alayhi wasallam xadiisu Aisha radiyallahu ta'ala anha ay weydiisay tiri habeenka hadii aan haleelo maxaan ku ducaysanayaa wuxuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri waxa tiraahdaa Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anni ilaahay waxa tahay mid dambi dhaafa oo waliba kariim oo sharaf leh oo karaamo leh oo deeqsiya ilaahay oo ii dambi dhaaf oo yafi sida ku ducaysa ayaa nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam Aisha oo waxa weeye uu tilmaamay hadaba habeenkaas fadliga leh tobanka dambe xagee buu kaga jiraa axaadiista ku soo aroortay way kala duwantay aqwaasha ahlul cilmigu ay kala yihiin mas'aladaasina way farabadan ilaa 40 qowl ayaa la gaarsiiyaa xadidida habeenka laylatul qadrigu habeenka uu kaga dhacayo waxa weeye tobanka dambe laakiin sida raajixa ay waxa weeye habeenkaasi wuu guurguura waxa xadiista ku soo aroortay nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam in laga baaro layaalil witr habeenada waxa weeyaan aan dhamayska tirayn ee 22 23 25 27 29 tirada kala dhiman in laga baaro marka intaas ayay ku dhex wareegtaa oo sanad waxa laga yaabaa 22 inay gasho sida nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu laga wariyay waxa weeye sanadka nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay ama amaaradii calaamadii la arkay in habeenka 22 ay noqotay saas ilaamida waxay noqon karaysaa 23 oo culimada qaar kood ay doortaan oo yiraahdaan sanadka sida waxa weeye bisha habeenka 23aad weeye laylatul qadri culimada qaar kood 27 ayay doortaan waana qowlka loo badan yahay moodo inuu xagga quwadana ugu quwa badan yahay culimada in badan oo kamid ay ku tageen sanad walba inay 27 ay tahay waxa weeyaan laylatul qadrigu laakiin xagga rujxaanka ay raajixnimada inay guurguurta ayaa raajixa oo waxa weeye tirada kala dhiman inay habeenba mid ay galayso sanadba mid inay mid galayso oo ama ay 22 noqonayso ama 23 ay noqonayso ama 25 ay noqonayso ama 27 ama 29 marka intaas ayaa laga baaraya waxa kale nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam in tobanka dambe oo dhan laga baaro xadiiska nabiga ka soo aroortay sallallahu alayhi wa alihi wasallam sida xadiis Aisha radiyallahu ta'ala anha in nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu yiri taharraw laylatul qadri fi al-ashr al-awakhir min ramadan tobanka dambe ee ramadan ka baara waxa weeye laylatul qadriga ruuxaantina toban habeen waxa aad kooban qofka khayrka inta leeg doonaya inuu helo doonaya oo xaadi aad u kooban weey oo toban habeen wax la tiriyay marka qofka muslimka waxa loo sharciyeeyaa inuu tobanka dambe ku dadaalo inuu baaro habeenka laylatul qadriga oo habeen walba uu cibaadada iyo taacada ku dadaalo haday noqoto salaada qiyaamul leylka ama salaada taraawix marbati u fududaata inuu xaga dambe oo qiyaamul leylka ka ayana fadli badan inuu taa ku dadaalo inuu quraan akhriska ku dadaalo waliba hadii uu khatimi karayo bisha waxa tobanka cisha dambe oo habeen walba uu akhriyo waxa way aad iyo aad ay u fiicantahay sadaqada inuu ku dadaalo alla bariga iyo xuska iyo ducada iyo istighfaarta iyo waxa soo dhan ku dadaalo ayaa loo baahan yahay habeenkaasi calaamada ma leeyahay
يعني علامات lagu garanayo in waxa weeyaan laylatul qadrigi uu yahay xaga xadiista nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadiiska fi sahih muslim Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu waxa uu tilmaamaya nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inuu tilmaamay عفوا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من قوله إنه تلمامي هبين كاسي صباح ديدا على مدى لو قراني أين يتهين يقرح ذو صوب بحضو يدو صافية ووح شعاع عن لهين علماء قاركود وحيابك لي شيغان ويكمتاي هبين كاسي إن هبين هادئة وعندب يبوق يقيلة آنو لهين وحسلون يهي وعلى مدى la sheego oo ahlul cilmiga ay tilmaamaan laakiin waxa weeye qofka muslimka ah waxa looga baahan yahay inaan waxba isku mashquulin calaamada inuu taacada ku dadaalo waayo waxa suuragal ah habeenka 12aad intuu calaamadihi la sheegay wax kamid ah intuu arko inuu yiraahdo laylatul qadrigi waad haleeshay maalmaha dambe waxba waxa weeyaan ha cibaadeysanin marka qofku waxa fiican inuu isku mashquulin ee uu ku dadaalo in uu waxa weeye ku dadaalo habeen maalmaha taacada inuu ku dadaalo waxyaabo kale mashruuca runtii una kaalmeynaya qofka inuu taacada ku dadaalo waxa kamid ah oo loo sharciyeeyaa in uu i'tikaafo qofku i'tikaafo oo naftiisa uu ku xabiso masaajid jamaacada laga oogayo jumcada inuu waxa weeye masaajid jamaacada iyo jamaacada laga oogo inuu ku i'tikaafo oo waxa weeyaan uu 10 habeen iyo 10kooda maalmood oo ku dhamaysto ilaa ciida laga ilaaminayo habeenka inuu ku jiro halkaas waayo taasi waa cibaado mustaqila i'tikaafka nabiguna sallallahu alayhi wasallam waa i'tikaafi jiray xaasaskiisii markii uu dhintay nabigu sallallahu alayhi wasallam way i'tikaafi jireen saalixiintii dadkii wanaagsan way i'tikaafi jireen marka i'tikaafkaasina waa muciin iyo mid kaalmeeyo kugu kaalmeynaya in aad habeenada iyo maalmaha ina taacada aad laazimto oo aadan ka mashquulin taasina waxa weeye waa amal loo baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan naftayda iyo cid kasto ay maqlaysaba aan waxa weeye ka baryayaa inuu khayrkayna waafajiyo taacadayna waafajiyo inoo fudaydiyo xaqana inagu sugo laylatul qadrigana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ina haleeshiyo kuwa ka faa'iideysana Allah inaga yeelo Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in